ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ዲሞክራሲያዊ ሁኔታ ይሰፍን ዘንድ የተለያዩ ኃይሎች የሚገኙበት ቻብካ ay mirihiisa mahadin doonin TPLF talada Itoobiya laga faramaroojiyay ayaa cimri ahaan la soo taxnaatan iyo waagi ay talada dalka Itoobiya la wareegeen 1991 isku koobida awoodda beegsiga kuwa ka aragtida duwan xashiga cabsigelinta qaybinta iyo qoqobka qowmiyadaha dariska la iyo sanduleynta dadka oo kaliya ma eersan TPLF waxay maalayaan mirihii awoodda dhexdooda ay isku qabsadeen isku gaaryeelista hantidii dadweynaha naas nuujintii istirsanayd qayaana isku qoolkii dhexdooda yaalay tala ama heshiis la'aantoodii kadib geeridii sanaawigii hoggaanka u hayay ayay ka soo bilaabanaysaa jabka degdega ee kala irdheeyo kooxdii xukunka adkayd geeska qarnigan cusub waa TPLF oo aan maanta ka sheekaynayna tabaalaha waayuhu badeen iyo sida fudud ee looga guuleystay waxyaabaha soo dadajiyay qodobka koobaad qaataya qaado markii ay xukunka yimaadeenba waxay iyaga kaligood saanyoodeen taladii sare ee dalweynaha Itoobiya taas waxay keentay in iyagoo 5% kaliya ka qowmiyadaha Itoobiya ay gacanta ku qabtaan 95% talooyinka muhiimka ee dalka iyo waliba ku dhawaad 100% wax ka badan dhaqaalaha dalka Itoobiya weerarkii Eritrea waxay sanadkii 1998 weerar gardarro iyo abaalka dhaca ku qaadeen dalka jaarka la Eritrea oo ay dadkeedu ka mid yihiin dadka reer Tigreega dagaalyahanada ELF jamhadda xoreynta Eritrea ayaa la wada og yahay in PDRF la qabteen caasimadda Addis Ababa bishii Maajo 1991 waxa iyaduna xusiis mudan in taageeradii dhaqaale diblomaasiyadeed iyo tababar ciidan ee dawladda Soomaaliya jamhadaha Tigreega u fidin jirtay ay sabab u ahayd loona sii marin jiray ELF oo madax xilligaas u ahaa siyaasi oo fawarkiga maanta ka arrimiyay Itoobiya weerarkii Mareykanku barigantaaleeyeen ee ay 2006 Soomaaliya ku qaadeen Itoobiya ayay ku leedeen inta badan dagaalyahanadii birlabta ahaa ee ka soo jeeday gobolka Tigreega inta kaliya maahe saraakiishii siyaasadda iyo kuwii ciidanka Itoobiya markii ay dib ugu laabteen Addis Ababa waxay sii xambaareen musuqmaasuq baahsan lana noqday iyagoo bahaloobay oo ay wax walba biic ka yihiin taas oo mar ciidanka Itoobiya ay hayaan kuwa ka caagan waxa loo yaqaan musuqmaasuqa laakiin ka laabashadoodii Soomaaliya ayay ahayd darsi cusub oo ay ka barteen galidii Soomaaliya Atomila Zanawi oo ahaa nin caan ku ah khiyaanada iyo toban wajiiranimada reer galbeedkana si mugla uga gaday inay TPLF kala dhex joogto dalka Itoobiya iyo xasuuq u akir Rwanda isla markaana ciidanka Itoobiya yihiin ciidanka caalamka koobaad ka hortaagan argagixisada islaamiyiin oo mandiqada geeska Afrika ka soo burqan doonta ayaa si degdeg ah ama kadisaha u geeriyooday intaanu mowd ku kadinin milas wuxuu aad u wiiqay wax dhintay iyo wax carayna ka dhigay aqoon-yahankii miisaanka lahaa ee qabiilkiisa oo awalba iska tira yaraa taasi waxay keentay inuu gol la galo naqshadii uu doonayo inuu Tigreega iyo dadkeeda uga badbaadiyo dekanooyinka gaamuray ee uu sanadaha badan u abuurayay qodobka shanaadi waa kacdoonkii Oromada kacdoonadii duufaanta watay Oromada ayaa yimid xilli Itoobiya ay maraysa marxalad xasaasiya oo talada dalka magac ahaan uu hayo Haile Mariam Desalegn xaqaduse waxay ahayd majaraha dhabta ay wada haysteen 3 kooban oo ka kooban agoontii Milisnaawi ka geeriyooday taliyaasha ciidamada oo uu duq u ahaa Maxamed Yooni Samora oo ugu dambeyntii ku baxay gacanta ciidanka Itoobiya gudaha Addis Ababa sirdoonka oo gacanta ku hayay Getachew Asife iyo kaadirkii aqoon-yahaninta TPLF oo ay calanka u siday haweeneydii u dhaxday Milisnaawi 8 xubin ee ugu firfircoon halgankii dheeraa ee TPLF xukunka ku timid kacdoonkii Oromada oo ay cadaatay inaan sinaba loo maareyn karin ayay 3 kooxood ee aanu sheegnay isku raaceen inay talada si kumeel gaar ah u wareejiyaan magacuyaal boqorna oo ay dooraan sidoo kalena talada dalka maalin aan fogeyn ay dib ugu soo laaban karaan qayaanadii weyneed ee TPLF ay ku kacday madaxdii ay dantu isku sidagtay ee Tigreega oo markan ku mideysan urur siyaasadeedka TPLF ayaa dajiyay qorshe aad u halis badan oo ay dadka siyaasadda indheendheeya ilaa maanta ka argagaxsan yihiin waxay goosteen ONLF ama jooxadii Soomaalida inay la heshiyaan nin muslima oo ka soo jeedo qoomiyadda Amxaaradana ra'iisul wasaare ka dhigaan ONLF
oo uu markaa la socdo cabdi ilaygii Ethiopia ay ku dhawaaqdo in gobolka Soomaalidu Ethiopia ka go'ay markii uu nin muslima ra'iisul wasaare noqdo gobol ka mid ah Ethiopia uu go'ay sheegto ayay ku talagaleen inay Tigreegu isku tagaan amxaarada wadaniyiinta xag jirka kaniisadaha iyo caalamka galbeedka ay diin iyo wadaniyad ku abaabulaan dabadeedna ay ku dhawaaqaan dawlad ku meel gaar oo ay Gondar saldhig u tahay iyaguna ciidan iyo maskaxba ay u yihiin maxaa fashiliyay khiyaanadii TPLF fashilka khiyaanadan waxaa sabab u ahaa Haile Maryamkii hayay talada Ethiopia oo iscasilay iyadoo heshiiskii ONLF Cabdi Ile iyo TPLF ee ka socday hotelka Pan Africa ee Nairobi loo fadhiyo siyaasiyiintii amxaaro oo inta badan halista maleegan fahantayna iska diiday in damaka makanoonkooda ra'iisul wasaarihii ugu codeeyaan iyo shirkii Nairobi ee ONLF iyo Cabdi Ile iyo dhinaca kale TPLF oo xiriirkooda lahaa Axmed Madoobaha Jubbaland uu markii uu iscasilay Desire Haile Maryam lagu kala firxaday isla markaana waxba aan ka soo bixin tabahaasi ee ka kooban 5 qodob waxay ahaayeen kuwii soo dadajiyay TPLF in si fudud looga sifeeyo talada Ethiopia waxaanu eegi doonaa haddii Allah wada raali ka ahaado qodobada u suura galiyay Abiy Ahmed inuu si fudud uga guuleysto kooxdan TPLF